maamulka Puntland ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay raggii lagu xukumay kufsiga iyo dilka ka dhacay magaalada Boosaaso ee loo geystay Caaisha Ilyas oo ahayd gabar 13 jir ah. Fagaare ku yaala magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu toogtay laba ka mid ah saddexdii ruux ee hore loogu helay falkan kufsiga iyo dilka inay ka dambeeyeen Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa saaka lagu fuliyay dil toogasho ah halka qofka saddexaad Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame 10 maalin dib loo dhigay in la toogto. wararka ayaa sheegaya in sababaha dib loogu dhigay xukunsanaha saddexaad in saaka la toogto lagu sheegay inuu codsaday aabaha dhalay Caaisha Ilyas. ragga saddexda ah ee loo haysta kufsiga iyo dilka Caaisha Ilyas ayaa 12 bishii May ee sanadkii tagay ee 2019 waxaa maxkamadda gobolka Nugaal ay ku riday xukun dil ah iyadoo maxkamadda racfaanka ay ku raacday xukunkaas kadib markii ay racfaan ka qaateen 24 February sanadkii 2019 Caaisha Ilyas Aadan oo da'deeda lagu sheegay 13 sano jir ayaa laga waayay xaafadda Siinay ee waqooyiga Gaalkacyo kadib markii adeeg loo diray hase yeeshee maalintii xigtay ee 25 February 2019 subax aroortii ah ayaa agagaarka gurigooda laga helay meedkeeda oo kufsi iyo jirdil ba'an loo geystay waxaana dhacdadaasi ay noqotay mid bulshada Soomaaliyeed badankeeda ay ka falceliyaan. sidoo kale Caaisha aabaheed oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu qisaastay isaga raggii u geystay gabadhiisa Caaisha uuna ku faraxsan yahay xukunka dhacay ee dilka ah ee maanta lagu fuliyay ragga uuna dib u dhigay mid ka mid ah xukunsanayaasha kadib saxiix dhacay oo uu madaxweyne Deni ku saxiixay dilka raggii kufsiga Caaisha u geystay. Bismillahir Rahmanir Rahim. maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay waana ku faraxsanahay. ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumanayeen dilkana maanta lagu wada furiyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana 10 waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay iyagoo ka yimid ma adiga go'aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa anaga xageeyna dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya. waa markii ugu horeysay ee gudaha Soomaaliya lagu dilo rag kufsi geystay waxaana inta badan maamulada lagu eedeyn jiray in aysan tallaabo ka qaadin dadka lagu eedeeyo inay kufsadeen ama kufsi kula kacaan dumarka. hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa in muddo ah dalbanayay in Caaisha ay hesho cadaalad waxaana mas'uuliyiinta Puntland ay horay u ballan qaadeen in dadkii ka dambeeyay dilka Caaisha cadaalad la marsiin doono. warbaahintu meesha ma joogin lagu qisaasay maxkamada Allah naxariistay maxaa cadeynaya baraha bulshada hadallo kala duwan baa ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska Caaisha mooyada Allah naxariistay bal maxaa cadeynaya in arrintaasi nimankii ay adiga Ilyas ahaan in nimankii goobta la geeyay dilka lagu fuliyay ay yihiin nimankii Caaisha Allah naxariistay dilay. nimankii Caaisha dilay waa wada qaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay afis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhirama baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadiiba. adigu goobjoog ma ahayd meesha lagu dilay? goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay.